kadib la tashi dheer uu madaxweynaha dalka Kenya la sameeyay qubarada u qaabilsan dalka Kenya la talinta dhanka caafimaadka ee cudurka COVID-19 ayaa wuxuu madaxweyne Uhuru Kenyatta ku dhawaaqay go'aamo isugu jira in bandowga guud ee saaran dalka Kenya lagu daray muddo 30 cisho ah iyadoo sidoo kalena la yareeyay saacadaha bandowga uu socon doono lagana dhigay 9 fiidnimo ilaa iyo 4 saqda dhexe ee habeenimo. That the nationwide dusk to dawn curfew, currently in force until today, the 6th of June 2020, is extended for a further 30 days. However, the commencement time for the same shall be varied from 7 p.m. to 9 p.m., with the end time for the same being varied from 5 a.m. to 4 a.m. Therefore, effective 7th June 2020, the nationwide dusk to dawn curfew will run from 9 p.m. in the evening to 4 o'clock. sidoo kale wuxuu madaxweynaha ku dhawaaqay in la qaaday bandowgii Saarnaa magaalooyinka Kwale iyo Kilifi. That in view of the successful containment of the disease in the counties of Kilifi and Kwale, the cessation of movement into and out of the two counties that is currently in force shall also lapse at 4 a.m. on the 7th of June 2020. dhanka kale waxaa la qaaday bandowgii Saarnaa magaalooyinka Islii iyo Old Town ee Mombasa. That the cessation of movement into and out of Islii area of Nairobi and the specific limitations in force with respect to the Old Town area of Mombasa that is currently in force shall lapse at 4 a.m. on the 7th of June 2020. Uhuru Kenyatta ayaa sidoo kale muddo kordhin gaaraysa 30 cisho ku kordhiyay isku socodka iyo dhaqdhaqaaqyada magaalooyinka Nairobi, Mombasa iyo Mandera. That due to the increase in patterns of infections, the cessation of movement into and out of the Nairobi metropolitan area, Mombasa and Mandera be further extended by 30 days. sidoo kale Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in goobaha cibaadada la furi doono muddo 7 cisho kadib. So today we state that following these consultations, within 7 days of today, the Ministries of Interior and Health will constitute an interfaith council to work out modalities and protocols of reopening of our places of worship. ugu dambeyntii madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa sidoo kale ku amray wasaaradda waxbarashada dalka Kenya in ay dugsiyada dalka Kenya ay dib u furaan marka la gaaro 1 bisha 9aad ee sanada tan aanu ku guda jirno. The Ministry of Education, jointly with the Ministry of Health, issue and publicize guidelines on a gradual and progressive return to normalcy in the education sector by the 3rd term, that is, from the 1st of September 2020. Atoore, wararka 5 TV, Nairobi.